بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني ما لا والله قف يعني قف بني آدم إنه يسوق سكور ربه ولا يسوق ربه إنه تعنولا. يعني بدن با ما تي في أما قول الجرائد أما قول الراديو وهي ما دين وكورة سنة ولا جينا ورما بحين ولا جينا تي في متجين واحد ضد قد وضع مساجد داوم بك قاتنا عشان ده هي الله. ده واحد سلا على مركز كور رمات كده بيسي على النديد ورمه marka wax badan oo sheego runtii ay ku kordhinaysaa ma jiro waqtigiina la lumiyo maaha anu raga halkan fadhiyo oo ka wada daaweynaan u maleynaya Sheekh Maxamed Umar Mala isku dhadhownahay Mustafa Xaj Ismaaciil Haruun baa la yiraahdaa reer wadaadaaba ka dhashay abahay xaaji baa uu ku magac dheeraan sheekh uu ahaa awgay aw Haruun baa la oran jiray awgay ka dambeeya aw Yusuf baa la oran jiray reer culimo oo dib ku taxan ayaan ka dhashay reer ahaan gobolka Burcaan ku dhashay waqtigii isticmaalkaanan dhashay intii aan dawladda Soomaaliyeed dalanin dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa ka mid ahay inkastoo aabahay Allah u naxariisto 45 sanadood buu cadan deganaa 1963 buu ka soo noqday laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaamaha loo diro baadiyo ay baadiyo ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhakhtarka iyo ragga joogiya waxaasi aanay islaamuhu rabin ee loo diro hooyadeedo baadiyo joogta inay baadiyo lagu soo umuro intaan walaalaanay nin quraan kaga dhashay cadan inta yadi kalaba baadiyana loo diray baadiyana ku soo dhalanay baadiyaha gobolka Togdheer ee Burco ayaan ku dhashay isagaan wax ku bartay malcaamad dugsi hoose dugsi dhexe institute-kii Jarmalka Burco ku yaalay intaasaan ka baxay takhasuskaygu tumaalnimada leydku ahaa jaamacaddii Soomaaliyeed baan ka baxay 1980kii iyadana takhasuskaygu tumaal leyda baan kaga baxay korontada tumaalku waa farsamo yaqaan وفرسما يقان ليد باك بحي جامعة دا كديبنا واحد نقضي معلم دوكسيكا فرسما دا قعنته جرمال كردستان كويا لما قال طبعا معلم كان نقضي مركان مدو سنة دي يبرم لها تشوغي دولة الصوماليات باي حدي دولة الصوماليات مرة بوح بدنا كشيغو لكن انت ميلوده wax ku xidhi jirtay waan soo maray station police waa la igu xidhay NSS waa la igu xidhay xero gulwada waa la igu xidhay xero military waa la igu xidhay dhabarjabin waa la igu xidhay jeel waa la igu xidhay waligeena maxkamad la ima tagin mararka qaarkoodna sanadaan ku jiray mararka qaarkood baan 30 bilood ku jiray على كل حال وحبرشة دينتنا وحن بيهيدون علماء الصوماليات ودن كدجن وحيانو كبوسني مجرين ودن دبدي ضانو بحي انتي دنبنا سانو تشوغون ودن كالصوماليا يا دقالذي جبهدوه كدعين مقالة برعان تشوغي مركين 1988 جبهدو صوغ الشيء waqtigaas baan wadanka ka baxay Yurub iyo meelahaas aan niman xanuunsanayo aan walaalana geeyay anigoo Yurub jooga dawladda Soomaaliyeedna dhacday ilaa 99kii baan deganaa Yurub March 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada Hargeysa ilaa haddana Hargeysa aan deganay laakiin socod
samayn kara wax baxtay kara wax baari kara waaga ma oolin laakiin waxa yaalay dad committed oo dadaalaya mala daacadnimada ku jirto oo in ilaahay wax ugu dhawaadaan ay ku jirto marka aanu qadiyada jecel inaan ku celiyo waxa weeyaan war nicmada haysataan ee ku saabsiisan diintu sida ay maanta u fududahay inuu qofku barto may jirin may oolin waxay ahayd wax aada u cidhiidhiya sidaad u xasilisaana ay inta badan ku xidhnaanayso sida aad wax u akhrido xataa iyadoo wax akhriskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii aada akhriyi lahayd uu cidhiidhi kugu gelayo intan dambe na dee meelaha un soomaalidu joogto baan wax ka sheegi jirnay anigu macallin baan ahaan jiray saa daraaddeed sheekh maan noqonin weli bana gaadhin macallinkuna daris loo diro buu soo diyaariyaa oo uu daadhiga waana laga yaabaa wakti aanay culammada soomaaliyeed haysanin qalabka technology-ga ah inaan un yurub ka hortegayo wax akhriyo dad wuxuu akhriyay waxaan xasuustaa cajaladahan ugu badane hore ee maintiyadii dadku dhegaysan jireen maqaaxaan ku akhriyi jiray waa soomaaliyeed oo norway maqaaxid Somali welfare la yidhaahdo Somali welfare organization ayaan ku yihi war labadii toddobaad maalin wax maydin akhriyaayo markaasay idhaahdeen haa niman carabaha ka tegay oo aan diinta isku fiicnayn baa ku badnaa markaasaan bilaabay inaan muxaadaraad xawla aliimaan arkaan aliimaan iyo xawla alxadaara alislaamiya inaan ka warramo nin dhallinyaraa baan ah hadal badan 2 saac iyo dheeraad baan maalin ileen 14 cashaan mar helaya markaa waxay noqotay markaa inaan 2 saac iyo dheeraad hadlo dadka markaa cajaladahaas baa soo gaadho markaas la siiyay mala ninkan sheekh weyn waa sheekh weynna marna ma noqonin laakiin uun fursad aanay jirin anigu in wax la duubo maan rabin waxaan xasuustaa waxba ha duubinaan ku yidhi nin dhallinyaraa baa intuu kamarad iska soo qaatay buu wuxuu yihi sheekha ma fadhiyo wax akhriya ma iskatay hagga dambe la fadhiista markaa waxaan kala doortay inaan wax akhriyo iyo inaan iska tago markaasaan iska akhriyey dariskii dambaan imi maalintii dambe cajaladu sidaan imanka ay u badayn uma badnayne VHS bay ahaan jireen VHS-kana warshad baa badin jirtay keliya intay cajaladii qaadeen bay warshad geeyeen dabeetana dhowr boqol cajaladood bay ka dhigeen oo iyagoo meesha ku iibinayaan ugu imin nin cabdillaahi xuseen kaahiye la yidhaahday iyo inaan loorane la yidhaahday axmed baaruud iyo iyagoo iibinayaano waar waa sidee dee waxaana iibinaysaa waxay dhahayn sheekh masaajidkaan kirada kaga bixinayna markaasaa iska aamusoo sirida masaajidkaan kirada alagaga bixiyo marka waxaan dadku duubayna anigu kuma talagelina inaan duubo TV-na weli ma tegin raadiona weli ma tegin wadaadku su-aalaha badana uu dadka weydiinayana mala in isagu ka jawaaba bay ku fiican tahay anigu intaasaan ku gabagabaynaya wasalaamu calaykum